munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay oo ay kana soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya maamulka dawladda Puntland sida madaxweynaha dawladda Puntland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Fawle wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cali Cabdullaahi Warsame iyo hay'adaha gurmadka caafimaadka qaybaha bulshada iyo ururo kale oo fara badan ayaa waxa ay ka dhacday xarunta wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland ee magaalada Garowe furitaankii ololaha talaalkan shanta cudur ee dilaaga ah ayaa dhaqaatiirta iyo mas'uuliyiintuba waxa ay hoosta ka xariiqeen in ay tahay fursadani mid guul u ah shacabka reer Puntland oo aan horay u heli jirin qayb ka mid ah talaalkan oo dhibna ku hayay caafimaadka bulshada Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Fawle oo si qoto dheer uga hadlay adeega caafimaad ee maanta daahfurkiisa loo fadhiyo qiimaha uu leeyahay isla markaana uu xambaarsan yahay shacabka reer Puntland ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa arintaas talaalada dadku aad uma fahmayo waxa la yiraahdo ka hortagga ayaa ka jaban kana faa'iido badan waa daaweynta waxa la isku daaweeyo oo daaweyntahay waa daawooyin kiimikaalisa oo ilmo qabatada noolaha oo in lagu arko bahalkan la yiraahdo microscopiga in lagu arko mooyee inaan arki karin oo colka ah oo kuwa xabada sita iyo waxa ka sii waaweyn ka daran oo jirkaaga galaya iyo kuwan ishuba qaban karin oo ciidda ka batay oo influenza iyo virus iyo bacteria loo bixiyo loo yaqaan ka hor joogsanaya inta loo helay dadaal culimo adduunka ay soo hesho muddo soo taxnaa in qofka bini'aadamka intuusan ku dhicin laga hortago weeye talaalku haddii aan si kale u sii micneeyo xogaagii aan waagii hore bartay ku daro cudurka laga talaalayo noolihiisii ilmo qabatada ahayd oo intaa la daciifiyey sidii loo garaacayay isagoo waxba ku noolayn laakiin nafta ay ka bixin baa lagu talaalaya si difaaca oogadaadu oo hubkiisa u samaysto qoryihiisa iyo dadka banaanka qoryaha waa loo samaystaa oo inta ay waxba dhiin baa leynayaan oogadeenu ay u difaacdo ugu talagasho inay ciidan samaysato la dirira sidaas uu talaalku ku salaysan wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland Dr. Cali Cabdullaahi Warsame oo isna dhankiisa ka hadlay ayaa bulshada u sheegay in ay wasaaraddiisu baryahanba ku hawlaneed isla markaana ay ku guda jirtay si ay uga qabtiri lahayd shacabka ku nool gudaha deegaanada Puntland ka qabtirka daryeelka caafimaad sidaa daraadeed waxaa laga go'an inaanu dadaalka iyaga kor u qaadno intii tabartaya ah sanadka kana sanad kasta cinwaan buu leeyahay wasaaradda u leeyahay sanadkaani waxa weeye sanadkii aanu hirgelin lahayn hirgelinta ayaa la yidhaahdaa iyo tayeynta hirgelinta waxaan ka wadnaa waxaa jira qorshayaal fara badan oo wasaaraddu ay hore u samaysay sida agaasimo guud hadda uu sheegayba waxaanu ku talagalnay qorshayaashaasi sanadkan inay noqdaan sanadkii ay hirgeli lahaayeen gabagabadii munaasabadan daafurka talaalka ayaa hay'adaha caafimaad ee ka howlgala gudaha deegaanada Puntland ayaguna ay hoosta ka xariiqeen ay ka go'an tahay sidii loo dabargoyn lahaa cudurrada dilaaga ah waxaana sidoo kale iyaguna erayo murtiyeed ku salaysan dhinaca fanka halkaasi ku soo bandhigay kooxda fanka waa bari Puntland oo si ayaguna qoto dheer ugu nuuxnuuxsaday adeeg darrada caafimaad darrada uu keeni karo محمد علي ورسمة صمصر TV Garowe